قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan wax yar ka taaban doonaa أهمية الإخلاص في عمل المسلم. qofka muslimka ah shaqada uu qabanayo daacad inuu ka ahaado sida ay muhiim u tahay. walaalayaal markii la fiiriyo camalka qofka muslimka uu qabanayo iyo inta uu gooyn karo markii la soo fiiriyo wax lagu rabo inay gooyaan wax leh ma aha. qofku shaqeynaya camal uu qabanaya salaad tukanaya soon ayuu soomaya sadaqo sadaqaysanaya wax badan uu qabanaa waxaas wuxuu ku rabaa janno iyo wax qiimo badan. marka waxaa la leeyahay rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam camalkaas janno ma gooyo inuu ilaahay qofka galladaysta maahane janno ma gooyo. sidaasaa marka culimmadu waxay u dhaheen si camalkaaga uu xoogaa kasoo ag dhawaado intii lagaa rabay waxa uu leeyahay wax lagu tayayn karo tayo. ikhlaas marka wuxuu noqonayaa arrinta muhiimka u ah camalka si loo tayeeyo. sidaasuu marka ilaahi alladii khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. ilaahay nolol iyo geeri buu u abuuray sababtuna waxay tahay si uu idin tijaabiyo kiina idinkugu camal wanaagsan. culamada qaar waxay ku fasiraan axsanu camalan akhlasuhu wa aswabuhu ugu ikhlaassan uguna saxsan. sidaasaa marka ikhlaaska wuxuu u noqday shart qabuuli lcamal cinda allah. ilaahay camal markuu aqbalayo waxaa shardi u ah kow in camalkaas ay daacad ah ka tahay oo ilaahay dartiisa a u qabanaysid. shardiga labaadna waa inaad sunnada waafaqsantahay rasuulka alayh isalaatu wasalaam camalkaaga uu camalkiisi waafaqsan yahay. marka waxaan soo qaadanaynaa waxyaabana tusinayo ikhlaaska haddii laga waayo camalka inuu eber noqonayo. rasuulka alayhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu ku sheegayaa qiyaamaha markii la tago saddex nin ayaa imaanayo xisaabta markii la joogo. nin ayaa imaanayo oo caalim ah sheekh aad cilmi badan iyo cilmi faafin iyo lagu yaqaana adduunyada markuu joogay. waa la weydiina waxaa la dhahay haye sheekhow cilmigaagii aan ku sii maxaa kusoo qabatay markaasuu dhida ilaahayow cilmigaaga bartay dadkaan sii bar intaasoo dugsigaan kici intaasoo iskoolaan kici intaasoo kanaan sameeyey saas iyo saas adiga xataa markhaatiyaa ka tahay. nacam sax waaye le warkaaga waa run intaas waa samaysay liyuqaal lak fulaan caalim in lagu yidhaahdaa ka rabtay laakiin waa hebel aqoon-yahan waaye caalim waaye faqad qiila lak waana lagu dhahay ee ikhlaas malihide orod jahannamo aad warkaaga waxba kama jiraan. labo nin kala imaana oo deeqsi ahaan jiray oo adduunyada lagu yaqaanay inuu masaajida dhiso lacag badan agoonta iyo dad badan oo gacan siiyo. waxaa la leeyahy hebelow maxaa kusoo samaysay xoolihii aan ku siiyey markaasuu dhihi doonaa ilaahayow xoolihii intaasoo masaajidaan ku dhis intaasoo dugsi intaasaa ku qabtay. waxaa la dhihi doonaa nacam sax waaye laakiin liyuqaal lak sakhi waxaa intaas u samaynaysay in lagu dhaho hebel waa deeqsi gacantiisaa furan in lagu dhaha u yeelaysay faqad qiila laka waana lagu dhahay ee jahannamo aad warkaaga waxba kama jiro ee camalkaaga waa eber. ninaa imaan doona oo soo shahiiday oo dagaal kusoo dhintay markaasaa la dhihi doona hebelow haye naftii aan ku siiyey jirkii iyo maxaa uga soo faa'idaysatay markaasuu dhihi doona ilaahayow meeshii ugu dambaysaan sameeyo ilaa ugu dambayntii naftayda xataa fii sabiilik aan usoo dhintay. waxaa la dhihi doonaa nacam waa jirtaa laakiin intaasoo dhan waxaa usoo dhimanaysay usoo dadaalaysay liyuqaal lak shujaac in lagu yihahdo hebel waa geesi oo soo majeestaan ah faqad qiila laka waana lagu dhahay ee waxba kuma yaalaan jahannamo aad. camalka marka maxaa ku dheelay nimankaan shaqay soo qabteen laakiin waxa shaqadoodii loo qaban waaye oo loo aqbali waaye maxaa waaye ama loogu abaalmari waaye ikhlaaska ayay laayihin. sidaasaa marka waxaa muhiim ee u noqotay qofka muslimka hadduu shaqo qabanayo hadduu daacad ka noqdo camalkaas waa camal ilaahay agtiisa taya ku leh. laba qodobka labaad waxaa waaye sida qur-aanka iyo nusuusta xadiista ku cad ilaahay wuxuu sheegayaa qofka hadduu hal xasano sameeyo 10 loogu dhufanaya waa qof walbo. laakiin dad waxaa jirto oo rasuulka shee alayh salaatu wasalaam ilaa 700 dicf ilaa intuu ilaahay og yahay 700 jeera loo laalaabaya. dadka qaarna intuu ilaahay og yahay oo bini aadan uusan xisaabi karin. maxaa keenaya marka laba nin oo isku ag tukaday duur tukaday 4 ragcad tukaday nina in la siiyo 10 loogu dhufto duurkii uu tukaday 10 duur loo qoro nina in 700 duur loo qoro maxaa keenaya ma ragcaday kala badnaayeen mise wax kale la yimaadeen. waxaa keenaya marka al-ikhlaas meeshaas qofna ilaahay wuxuu kala hadlayay qalbiga ayuu ilaahay kala khitaabayo uu ka tukanayay qofna 4 ragciyo waajibka ayuu ilaahay iga tirsi ka ahayd kii iga tirsi ka ahayd meel ayaa loo dhigay 10 kii ilaahay u ballan qaadaa loogu dhuftay kii ikhlaas iyo tayo la yimidna waa loo tagayay 700 iyo ka badan ayaa loogu dhuftay.
meeshaas marka waxaa ka soo baxday ikhlaas ahamiyaddu uu leeyahay fii camal muslim qofka muslimka shaqada uu qabanayo culummada qaar waxay yidhaahdaan muslimka ha ku gaaryeelina xataa qofka gaalka ah shaqadiisa hadduu daacad ka noqdo uusan cidnaba uga haybaysanin ay ka tahay shaqadan ka soo dhalaal sidii lagula balam uga soo dhalaal wuu ka meel gaaraya injaaskiisu wuu badanayaa marka meeshaasa marka waxaa ka dhacayso in qof walbo ay fursad u tahay alikhlaas muhiim inuu yahay sidaasaa marka waxaan leenahay qof walba mu'min ow markaad shaqo qabanayso shaqada a qabanaysid daacadka ahaw inta aadan maxay eeto shaqadaasu qabanin qowlkii ilaahay ayaan kusoo xiraynaa wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa'a wayuqiimu الsalaata wayu'tu الzakaa wadalika diinu اlqayima ilahi wuxuu leeyahay dadka ma la farin inay ilaahay caabudaan maahane say u caabudayaan daacadnimay u caabudayaan diinta iyo waxa ay samaynayaan asiga keligiis ayay u baraxtirayaan taas ayuu ilahay aayadda wuxuu kusoo koobe wadalika diinu اlqayima diinta toosnaanta diinteedu waa taas inaad mukhliska aad fii camalika ayaa toosnaantu ay sheegaysaa meeshaas ayaa marka naftayda iyo tiinna waxaa idinkula dardaarmayaa in wax walba oon samaynayno oo ikhlaaska ay qalbiga aan ku hayno si ilaahay oo camalkeen inoogu tayeeyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وصل الشعور الأنجوم